ruushka Moscow bartamaha magaalada taariikhiga ah qasri hore oo laba dabaq ah dhismihii baa dhulka ku dhacay albaabka daaqadaha dabaqa koowaad waa heer dhulka aynu eegno daaqadaha dabaqa labaad dabaqa koowaad daaqaduhu waa isku mid balag ahaan laakiin dherer ahaan waa ka yar yihiin waxay u muuqataa in waagii hore daaqadaha sare ee labada dabaq ay isku mid ahaayeen dhererka dabaqa labaad aad ayuu uga weyn yahay dhererka dabaqa koowaad ma aragtaa faraqa u dhaxeeya dabaqa labaad waa sare dabaqa koowaadna waa kala badh cabirka fiirso sida loo qurxiyay daaqadaha dabaqa koowaad aynu eegno dhismaha ka socda barxadda markii hore waxaa jiray daaqado halkan waxaa ku yaal dariiq qurxinta ee ka sareeya si la mid ah dhinaca wadada waa kan daaqadda oo furan waxay ku dhajiyeen leban oo ku dabooleen malaas maxay tahay sababta daaqadda loogu sameeyay heerka dhul kadibna u dhig leban kanima qorshe garaadka naqshadeeyaha taariikhyahanadu waxay sharxayaan in guriga laga dhisay meel jirar ah sidaa darteed daaqadaha bidixda waxay noqdeen kuwo heer hoose ah laakiin dabaqa koowaad wuxuu si cad uga maqan yahay dhererka waa in uu jiro sagxad hoos oo ka sida dhismaha dabaqyada badan ee deriska ah gurigu sidoo kale wuxuu ku yaal meel jirar si kastaba ha ahaatee jidhifkeeda bidix dhulka laguma dego ilaa albaabada daaqadaha dhisayaashu waxay sameeyeen saldhigga dhererka caadiga ah qasrigii hore ma laha meel hoose soo dhan taariikhyahanadu waxay sheegeen in sanado badan uu gurigu dhulka ku dhacay isagoo miisaansiinkiisa wata sida laga soo xigtay dukumeentiyada rasmiga ah dada gurigu waa 200 ilaa 250 sano dhismahan oo dhowr daba ah ayaa jira 90 sano aad ayay u badan tahay baxadda weyn guriga hoos uma dhigin dhulka muddo qarni ah labada dhismaba waxay ku taagan yihiin iyo karo isku mid ah laakiin dhismaha nal kale ee laba dabaq ah ayaa dhulka hoos u gasha ilaa heerka daaqadaha maxay tani u dhacday